الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده أما بعد سودو هذا ولا ليها كشكي لابتا حلقي دونتا بها أهاتو حلقي دونتا بها دين أهاتو أو وناكسن أو محل ليجري أو وناكسن أو عن أو إسكا بركيسن أو إلهي بركي روبا قروحسن قايقي مبالي إلهي درتي من دي جعلهاي وصيرة دي نبي صلى الله عليه وسلم قيبتي كوب iyo tobanaad 11 qaybteedii weeyaan qaybtii ku horeysay waxaanu ku joojinay ay ahayd quraankii oo taasiir gareeyay ninkii la dhigi jiray Najashi Soomahan iyo wasaaraddiisii iyo wasiiradiisii iyo magaranaysaa madaxdiisiiba ka ooyisay Allahu Akbar hadda ninkii ahaa Amr ibn Aas ayaa u istaagay markaasaa wuxuu dhahay Najaashiyow nimankani waxay ka sheegaan Ciise hadal aad u weyn yani wuxuu ogyahay inuu Ciise jecel yahay Najaashi sida awgeed wuxuu rabaa in uu ku diro asxaabtan soo hijrootay inuu ku diro Najaashi ayuu rabaa si loogu celiyo wadankoodii iyo Makka wuxuu dhahay Najaashiyow nimankani waxay ka sheegaan Ciise alayhi salaam waxay ka sheegaan war weyn markaasuu ku dhahay Najaashi maxaad ka sheegteen maxaad ka dhahdeen Ciise markaasuu waxa uu dhahay Jaafar ibn Abi Talib waxa uu dhahay radiyallahu an waxaan ka sheegnaa kaliyata wuxuu nabiga iyagu noo sheegay huwa Abdullah wa adoonkii Ilaahay wa kalimatun alqaaha ila Maryam waana kalimada Ilaahay magaranaysaay ku tuuray مريم عليها السلام أو كلمة الله أو متقناي وأنا رسول الله عبد الله ورسوله وأدون إلهي يا رسول إلهي سبحان الله مركز النجاشي انتو قري سوق هذا أي روك صاوب شيء مركز ولا هاي والله لينكاس يعني واحد والشيغان عيسى لينكاس كما دح بحسنا لينك أي شيغان وكما دح بحسنا أي واسطة أي هذا الكوديجان يعني سبحان الله وقال نينكني محو دحاي markaas wuxuu dhahay orda wallahi idinkuma mataqaanay idin ma dhiibayo cadawgiina dhulkayga inta doontaan ayaad ku noolaanaysaan oo sida doontaana aad ugu noolaan kareysaan oo meesha doontaan aad ka degi kareysaan tayib aan su'aal idin weydiiyo su'aashan idin weydiinaya waxa weeyaan asxaabtan soo hijrootay muxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uraaci waayay muxuu ula hijroon waayay hoosta commentiga noogu reeb insha Allah jawaabta saxda ah waxaan ka dhiibi doonaa gabagabada muuqaalka ama waxaan ka dhiibi doonaa muuqaalku dhalay muuqaalka xigi doona isna muuqaalku dhalay biidni Ilaahi tabaaraka wa taala waxaan marinaynay nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu uraaci waayay ayaan isweydiinay okay asxaabta soo hijrootay imsa sano ayay magaranaysaa ardu xabasha ay joogeen waxa la sheegaa 15 sano inay joogeen maaha 10 cisho maaha bil 2 bilood 3 bilood sanad 2 sano 15 sano ayay meeshaas ku noolaayeen oo ay joogeen qaarkood soo noqday ayaa jira oo waatii magaranaysaa isfahan waagii iyo magaranaysaa warkii beenta ahaa laga soo sheegay magaranaysaa reer Quraysheed markuu yimaaday qaar kamid oo soo noqday ayaa jira oo waxay maqleen Quraysh oo dhan way islaantay waakii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dul akhriyay suurat an-najm ay wada sujuudeen reer Quraysheed intoodii badnayd intay magaranaysaa u qaateen inuu nabigu amaanay magaranaysaa Laata wal Uzza afara'aytum waati aayadihi waxay ahaayeen dhamaadka suuratu an-najm ilaahi subhanahu jalla jalaaluhu waxa uu leeyahay fabi'ayyi aalaa'i rabbika tatamara hadha nadhirun min an-nudhur al-ula azifat al-azifah laysa laha min duni Allahi kashifah afamin hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu aayadahaas markii lagu dul akhriyay reer Quraysheed intoodii badnayd waa kuwii sujuuday markay sujuudeen kadib warba isdhax qaaday la leeyahay reer Quraysheed oo dhan way islaameen
oo aayado kaloo waxaa jira ka sheekeynaya ma garanaysaa wamaa min nabiyin ila ida tamanaa alqa shaytaanu fii umniyih, yani nebi kasta oo ilaahay soo diray waxaa jira ma garanaysaa waxyaabaha uu dadka u sheegayo inuu shaydaanku ma garanaysaa waswaasinayo dadkan uu wax kale uga dhigayo oo uga dhigayo inuu ammaanayo asnaamtooda ama waxaan diinta ay ka dhiganayaan. way jirtay markaas ma garanaysaa fayansakhu allahu maa yulqi shaytaanu, ilaahay baa markaasna ma garanaysaa baabiinaya waxaa shaydaanku ku dhex tuuray ku waswaasiyey dadka oo baabiinaya dukun daakun ka dhigaya. allahu akbar. ilaahay subxaanahu jala wacalaa asxaabta waxay maqleen, yani asxaabtii hijrootay waxay maqleen allah waree qureysheed oo dhan way sujuudeen oo ilaahay bay aamineen. qaar baa farxaddii ishayn kari waayeyba baba way soo ordeen ilaa ay ka imaanayeen maka. cuthmaan ayaa ka mid ahaa oo waa tii ma garanaysaa quraysh markuu u soo noqday ay ilaahow kaga siiyeen, way cadibeen cadibaad daran aad ayay ma garanaysaa u dhibeen oo waxaa la sheegaa isha inay kasoo tuureen ma garanaysaa waxyaalo aad u weyn ay ka gaadhsiiyeen isha. subxaan allah. kadibna nebiga sal alla alay wasalam ayaa dhahay igu yeedha cuthmaan. markii loogu yeedhay loo geeyey nebiga sal allahu alayh wasalamna ishii nebiga sal alay wasalam gacantiisu ku masaxay, uu ku tufay gacantiisuna ku masaxay, sideediina way ku soo noqotay. allahu akbar. waa min mucjizaati nabiy ayay ka mid ahayd, mucjizooyinka nebiga sal alla alay wasalam ayay ka mid ahayd arrintu dhashay. allahu akbar. kadib najaashi sidii ayaa ma garanaysaa asxaabtii uu ku magangeliyey. wuxuu ku dhahay idinkuma salladay cadowgiinan idinma dhiibayo, dhulkaygana waad ku noolaan karaysaa. adigana camr ibnu caasow saaxiib baan nahay. war nin caaqilan kugu ogaaye, nin caaqilo oo aqli badan baan camrow kugu ogaaye. waa maxay de ma garanaysaa jaahilnimadan iyo waxaan aad ma garanaysaa dadkan uga hor imaanayso, hadiyadan iyo waxaan aad ii keentay iyo waxaan aad igu soo sabanayso o dhan qaado, ulana noqo ma garanaysaa reerahaagii reer qureyshyadoo inugu kala gee abti. wadada qaniin ma la dhihi jiray, wadada qaniin liidka raac. subxaan allah. xaafadaad iska aad, cagameydha seexo. subxaan allah. wakaas xaqu mar kasta wuu istaagayaa, xaqu mar kasta isaga ayaa guulaysanayaa. adiga daciif ah haddaad doonto ciidan ha lahaanin, laakiinse xaq haddaad ku taagan tahay wallaahi waad guulaysanaysaa. mabda haddaad ku taagan tahay wallaahi waad guulaysanaysaa. haddii aad ma garanaysaa allah iyo rasuulka sal alla alay wasalam waddadiisii aad haysatood qaniinsan tahay wallaahi waad guulaysanaysaa. haddii aad qur'aanka saaxiib la tahay, ku dhaqanto, ka run sheegto, ma garanaysaa xafiddo, matasho qur'aanka, subxaan allah, wallaahi waad guulaysanaysaa. allahu akbar. waxaad noqonaysaa, waxaan maqalnaa maalmahan tiktok iyo instagram iyo waxyaabahan quruxdii oo qof ah, maxaygii oo qof ah. haddii aad sidanaan kuu sheegaya aad samayso oo sunnada nebiga iyo qur'aanka aad ku dhegto, waxaad noqonaysaa xaqii oo qof ah. waxaad noqonaysaa guushii oo qof ah. waxaad noqonaysaa mabdi'ii oo qof ah. waxaad noqonaysaa farxaddii oo qof ah. waxaad noqonaysaa wanaaggii oo qof ah. waxaad noqonaysaa diintii oo qof ah. allahu akbar. ilaahay haynaga dhigo, allahuma aamiin. kadib asxaabta 15 sano ayay meeshaas ku noolaayeen. siyaasaddaasna waxay ahayd siyaasaddii nebiga sala allahu calayhi wasalam ee aadka u quruxda badnayd, ee ma garanaysaa adduunka oo dhan ka yaabisay. najaashina wuu islaamay, laakiinse islaamnimadiisa uu qarsanayey. dagaalkii beder markuu nebigu sal alla alay wasalam uu inoo imaan doonaa, uu guulaystay. waxaan taqaanaay dagaalkii beder nebiga sal alla alay wasalam marka uu guulaystay, najaashi ayuu warqad u diray. markaasuu ku dhahay ma garanaysaa min muxamed rasuulillah sala allahu alayh wasalam ilaa najaashi malik alxabash. gaaladii kufaartii qureysheed dagaalkii beder waan kaga guulaysanay. markii loo keenay uu akhriyey, madaxuuna saartay. subxaan allah. markaasuu dhahay alxamdu lilaahi aladii nasara nabiyah. ilaahay baa mahad iska leh, kaas oo guuleeyey nebigiisii, oo ka guuleeyey haadihi shirdima. kooxdaa yar ma garanaysaa, kooxda nin ilaahay ka guuleeyey ayaa mahad aad u ballaadhan ay u sugnaatay. waana kii markii dambe islaamay, islaamnimadiisa laakiin uu qarsanayay najaashi. nebigana sal alla alay wasalam hadiyad buu u keenay, hadiyadiina nebigu waa ka guddoomay.
maxaa la dhahay nebigu sal alla alay wasalam waxa uu guursaday umu salama oo ahayd mataqaanaa asxaabtii la hijrootay asxaabta hijrootay ka mid ahayd umu salama oo iyadana qasa lahayd oo riyootay iyadoo dayax magaranaysa ay kusoo dhacayo dhabteeda ayay ku riyootay. kadibna qof ayaa u fasiray oo ku dhahay qof wanaagsan ayaa magaranaysa ku guursan doonaa. sidiina way dhacday oo nebiga sal alla alay wasalam ayaa guursaday umu salama. umu salama ayaa dhalay mataqaanaan? umu salama abu sufyaan ayaa dhalay. abu sufyaan ayaa dhalo waa ina abu sufyaan, waa tii markuu madiina ugu yimaaday magaranaysa abu sufyaan. umu salama uu ku fadhiisas dhahay go-ii nebiga ku tiri kac, saad ugu fadhiisataa adigoo gaala go-a nebigee nadiifta ah. subxaan allah, waa aabaheed ninka aysaa ku leedahay. allahu akbar, allahu akbar. marka qisooyinka iyo baabka kale inaan galno ma rabno insha allahu tabaaraka wa tacaala. siirada unbaanu sii wadanaynaa sida magaranaysaa mawduuceenu uu ku sahabsan yahay. su-aal ayaan isweydiinay bay ahayd, nebigu sal alla alay wasalam muxuu asxaabta u raaci waayey oo uu ula hijroon waayey oo ardul xabasha ula aadi waayey? uu ku magangeli lahaa, diintiisana halkaasuu ku faafin lahaa. maan idiin sheegaa mise hoosta kusoo qoraysaana tacliiqa waa idiin daaya inaad comment kasoo bixisaan? waa idiin sheegaya. sababta waxa weeyaan nebigu sal alla alay wasalam wuxuu u raaci waayey aragtidiisa dheer awgeed, siyaasadiisa shidan awgeed. siyaasadiisa ayaa ahayd tab nebiga sala allahu calayhi wasalam. siyaasad wanaagnimadiisa, xigmadiisa, caqligiisa iyo nebiga sal alla alay wasalam fariidnimadiisa awgeed ayuu u raacin. sababtoo ah ardu xabash ayaa kasoo jeeda, abraham ayaa kasoo jeeda, soo maaha? abraham waa kii magaranaysaa isku dayay inuu kacbada magaranaysaa burburiyo. maxamed oo nebinimo u sheeganaya reer quraysh haddii uu u tago magaranaysaa ardu xabash dhulkii uu kasoo jeeday abraha, quraysh maxay dhahaysaa? ninkii uu caddaystay. raggii kacbada rabay inay dumiyaan ayuu magaranaysaa hadda u aaday. subxaan allah. sidaa awgeed dabka ayaa sii kici lahaa. nebigu sal alla alay wasalam aqligiisa iyo fariidnimadiisa awgeed wuxuu jeclaystay in uu siyaasad kale halkaana, siyaasadiisa awgeed in uu halkaasna diinta ay ka faafiyaan asxaabtiisu, halkanna magaranaysaa uu diinta ka faafiyo. allahu akbar. oo qur'aanka soo dega iyo wax kastaba asxaabta sidaas ayaa loola wadaagay oo loo geynaya halkaas. 15 sanina ku noolaayeen. nebiga sal alla alay wasalam isagoo guulaystay oo masaajidadii la dhisay oo aadaankii baxayo oo madiina tegey oo maka furtay, haddana weli dadkii hijrooday ardul xabasha aaday meeshoodaas ayay joogeen oo ay diinta ka faafinayeen kuna baranayeen. waxaanan aniga isleeyahay niyo soomaalidu malaha dadkaas ayba kasoo jeedaaba. allahu akbar. soomaalidu dadkaas ayay kasoo jeedaaba isle asxaabihii magaranaysaa ayaynu kasoo jeedaayo garanaysaa. inaga hadda iska yara shidan oo iska yara nuurayno oo mataqaanaa iska yara tima jilicsan oo ya carab iyo madow isku yara dhex jira ah oo ya iska dee waa dee carab baynu nahayna waa inaga dhahna moogta. waxaan waa wax abka ab aynu soo isticmaali jirnay. marka wallahi asxaabahaas aynu kasoo jeednaaye. allahu akbar. ilaahay dembiyadana ha dhaafo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam uu inagu anfaco, inagana dhigo kuwii magaranaysaa wax ka barta nolosha nebiga sal allahu alayhi wasalam, siiradiisana magaranaysaa wadadiisa iyo noloshiisa raaca, ku dayda magaranaysaa, kana faa'iidaysta. ilaahayna waxaan ka barayaa waxaanan sheegayo in aynan iga noqonin istusnimo ama inaan magaranaysaa weji qof kaga rabo ama dad kale ama waxyaabo kale ama caanimo aan ku rabo. waxyaabahaas ii noqoto khaalisa lillahi, inuu ilaahay maalinta qiyaame igu abaalmariyo abaalmarinteeda. ilaahay waxaanan idinkana idinka barayaa sidaas oo kale in uu ilaahay idinkana idin barakeeyo, idinkuna anfaco. kow nafteyda aan ka bilaabay nagu wada anfacaba siirada nebiga ee qurux badan. ogaadana markastood nebiga sal alla alay wasalam aan ka sheekayno oo markastoon usii dhowaanayno. allahna wuxuu leeyahay waclamuu ana fiikum rasuula allah. sida magaranaysaa ciwaankeenna inooba ahba aan magaca u bixiyey siiradan magaranaysaa ciwaankeeda ugu muhiimsanba waxa weeyaan aayaddaas qur'aanka ah, waclamuu ana fiikum rasuula allah. ogaada inuu nebigi sal alla alay wasalam idin dhex joogo, oo hadduunan haddana dhex joogin oo uu meyit yahay, uu dhintay nebigu sal allahu alayh wasalam, waxay nala joogta siiradiisii, waxay nala joogta taariikhdiisii, waxay nala joogta axaadiistiisii, waxay nala joogta noloshiisii, waxay nala jooga ducadiisii, waxay nala joogtaa waxay nala jooga raadkiisii, waxay nala joogtaa
isagiyo magaranaysaa aanan nooleen haddana inala joogo waxay dhahaan gaaladan waxay dhahaan magaranaysaa xabashidu ambasa ay motin bay dhahaan xabashida ambasa ay motin bay dhahaan libaaxu ma dhinta bay dhahaan magaranaysaa oo haddaad qof de magaranaysaa aad u weyn aad tahay haddaad dhimato warkaaga waa lahaynaya un ilaa qiyaamaha ninkaasa lalahay ha wallahi haddaba ambasa nebiga sal alla alay wasalam ka sarreeyey adduunka ma soo marin libaax ka sarreeyey nebiga sal alla ambasa waa libaax weeyaan libaax ka sarreeyey nebiga sal alla alay wasalamna adduunkan ma soo marin dushiisa mana soo mari doono yaa calama alhudaa yaa nabiyi yaa xabiibi yaa rasuuli yaa rasuul allah wallahi waan jeclahay nebigii ilaahay idinkana waan ogahay inaad jeceshihiin qofku qofka wuu jecel yahay uu ku daydaa oo waddadiisu raacaaye qaada waddadiisa oo ku dayda biidni illaahi albaari waxaan ilaahay ka rajaynayaa in uu siiradan gaadhsiin doono dad aad u fara badan oo mataqaanaa wax ka baran doona oo kusoo islaami doona kuna magaranaysaa cibro qaadan doona mataqaanaa kuna dhaqmi doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ilaahay dartii baan idin jecelahay dhammaantiinaba meel walbo joogtaan allah idinku xafido بسم الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سؤال الويدينيا الله إنه أقبل الدعاء ما مقش ولي النبي صلى الله عليه وسلم حبس أي لقليه ولا حري waxaan kaga sheekeyn doonaa qaybta u dhashay qaybtan xigi doonta biidni illaahi tabaaraka wa tacaala noqo dadka ugu horeeya ee magaranaysaa kasoo qayb geli doona daawana doona muuqaalkana u sheer garay walaalaha kale si ay uga faa'iidaystaan taageerada kala duwanna insha allah ka muujiya muuqaalku dhalay hore socod ku saliya nebiga xilligay idin tahay oo nuur